السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قلت لك يوتيوب كذا ونسنا ودرس لعبدي. فضل ده يوتيوب channel كي كورسو تاعي سبسكرايب سار سوته وبلاش فيديو كان لايك سار كومنت كسر بيحي شير قري أدي أدو ما سنتاي. وحياة قال مكان أركتيد هذا مكان أركتيد بيكايا بنيان. بلين مك قبل واحد كهار ليسو يرد دقيستان ما فاهم بيه واحد كنت معلومة بقرني معنوية بل يرد دقيسو. وارد. مقول شامل كليرة هذا. وعد ودنكي هذا كله لانين. وأتراد بالسوء أرق ماشي. أتراد بالماشي سوء أرق. اوكي waxay tiri markaadan wadankii ku daran oo tiraadid meeshii soo arag macnaha meeshii waxay ka wadaa wadankeedii bay meeshii ku tilmaamaysaa ma iska tiraado wadankaagii markaad soo arag istiraadid say u hadlaysaa laga gartaaba inayna wadankeedii ku faraxsanayn oo aad cabsi badan eglanay qabtid lagu sheegi maayo okay way cabsatay anu gabadh waxay ka cabsatay ma garanay laakiin bal waxbay ka cabsatay bal aan sii dhigaysano waa aragtay social media balaya dhacday waxba gubtay aduun baa qaxay laga sheekeynay xamar iglanay ها إمكان كنت مركا waxay ka cabsanaysaa dhibaatooyinka macnaha qaraxyada iyo waxyaabaha ka dhacaya wadankii ha horta kulli qaraxyo u dhaca laakiin wali ma maqashay fanaan baa qarax ku dhintay way yartahay lacala hadii jirtaan aanu ma hubo laakiin se badana waxa waxyeelo waxa weeyaan dad aan waxba galabsano la aqoonin buu waxa yiin dadka caanka iyo fanaaniintu badanka kuma wadintaan qaraxyo aanu ma maqlin inay jiraan laga yaabo laakiin hadii ay jiraan lacalana waa in yar macnaha waa la tirinayaa laakiin dadka badanka baabaa waa dad masaakiin oo la aqoon laakiin fanaaniinta badanka waa ilaaliya ilaalay leeyihiin markaas si wax absansa gabadhani waa lagu ilaalinayaaba ka waran marka aad go'aan qaadatid oo aad go'aan geesinimo la qaadatid inaad tagtid iglanay adoo waliba cidiba kaaga horeyn ba saaxiibo mahane iglanay horta midna ugu wadankaaga in cid kaaga horeyso qasab ma abade waa tigaysaa xagga wad garanaysaa in hotel tahay xagga wad garanaysaa in madaxweynuhu galo xagga wad garanaysaa in wax laga iibsado waxaad u baahan tahay marka lagu soo dhaweeyo waxaas macnaha waxa ka hadlaya daruuri ma hade qasab ma macnaha waaw marka waxyaabihii kugu cusbaayay kugu waxyaabihii cajiibka iglanay hadan kaaga shakiyo waan qosoleysaa okay balaayiro dhageysano wax cajiib ay noo sheegaysaa gabadhu iyo cajiib de hadda Nairobi wada aragto sidan aan u labsan aan normal baan u arkaa waqta xamar sidan waa mamnuuc horta gabadhu maxay ku hadlaysaa ya xatrwal okay waxay tiri anigu sida normal baan u arkaa laakiin xamar waa ka mamnuuc ha xamar keenay meesha horta bal xamar xagga inaga yardhig diinteena ka mamnuuc tahayba marka adigu saan u arko diintii iyo dhaqankii macna kala garanaysid ba macnaha wax lagu qososmaa macnaha waa wax funny soma ninka labiska labisan tahay just waxaad u aragtaa just normal bu iyo laakiin xamar marka tagto qof yaa deenkii ka tilaabaad noqonaysa arinta iga siyaabis waxa weeyaan qof weyn oo kale markaad xamar tagto saari waa ka mamnuuc maxaa xamar meesha keenay meel walba muslim degan yahay ka mamnuuc tahay saani marka maxaad sameyn jirtay marka waxaan sameeyay sheekadii igu cajiibsanay okay bal han dhageysano hadana sheeko kale oo cajiib inoo sheegaysaa gabadhu guntiina xirta iglanay guntiinada kaya marka joogaan waxay ahayd darkan caadiga waqti shayga igu asturanba guntiinaan xirtay hadaba walaal maxay ka hadlaysaa wakaas maxaa ka hadlaysaa walaal gabadhan wax walba u normal macnaha lacala maaladii qaawanta waa normal malee maxaa normal walaalde waxaan sir meesha xogaa dhaqankeeda soo la qabsatid madaxa dabool waxay ku leedahay meesha waxoogaa sida dhaqankeedu la qabsatid waxoogaa madaxa dabool waad ka walaal su'aalan ku weydiiyay aad ma dhaqanka Soomaalida haysan macnaha ma dhaqanka la haystaa oo macnaha imka dhaqankii Soomaalida ma garanaysid ba imka gabadh nimkii intay leegtahay 29 ilaa 35 meelaha way gaadhay haddana dhaqankii Soomaalida ma garanayso gabadha dhaqankii Soomaalida diintii wax walba isku wada walaalay bal walaal xaga joog walaal joog askum la qaadirish halka aad ku qadantahay wax isku wada walaaqaysaaba hada dhaqanka Soomaalida xaga ay noo dhig diinteena ay ka mamnuuc tahay haddana dhaqankii Soomaalida soo cali dhaqanka Soomaalida waa ka mamnuuc labadaba waa ka mamnuuc waa iglanay aan kaaga sheekeeyay madaxayga aan mar saaran xamar bay igu horeysay sideedaba noloshaydu in sarma sida loo xirto ma aqaan okay gabadhan imka markaa waa 28 ilaa 30 jir adu haskan ilaanab 5 jir bay tahayba 25 sano madaxeeda miina saarin wax taa macnaheedu waxay tahay 25 sano miina tukan taa macnaheedu waxay tahay 25 sano masaajid miina gelin إلا يلا نوع عطيسة يلا مباتري أنا كم قدمنا يلا تري أنت صار نولاي ودن ما أنت يجوه الرئيسين المدة حي وحسارو
marka taa macnaheedu waxay tahay masaajidka adigoo madaxaagu qarsan yahay mooyaane oo asturan mooyaane ma geli kartid dee marka iyadu masaajidba mayna gelin bitaas oo dhan tanna may noo dambeysay macnaha in yidhaahda anoo intaa leegsaan maan samayn waa lagu faanayaaba tv dhan baa lasoo fadhiistay waa lagu sheegaya waxaas waaba meel waxaan ku yidhi meeshaas waaba meel diintii beertay maasha allah markaad rabtid inaad beecadaas la noolaatid iglanay adoon masar xiran aqoonin halkaan kasoo dhex galo anu horta marse waxay tahay ma garanayo laakiinse masar baan garanayaa haddii masar la yidhahdana gabdhaha iska daabee wiilashana iska daabee ciyaalka yaran niqiiskaa garanaysa loo waxeeyo macnaha waxaan ka wadaa su-aal ahaan iminka waxaan waa masarkii ma waxaad garan laadahay adigoo intaas leegna saad tiraadid kadibna saa yaro tiraadid haddaba madaxaad u saaro kadibna saa yaro dhe intaasaad garan laadahay intaas waxbarasho u baahan oo walaalkaale waxaan ku weydiiyey bal su-aalan ku yar weydiiye fanaanad baan ahay baad leedahay seed ku xifidaa heesaa mise ku waraaqada ka aqsan ku jirta war adduunkan wallaahi waa la waashay waxyaabaha qaarkood maskaxda ma galaan ma garanaysaa gabadhan imika waxayna leedahay masarka sida loo waxaysto ma garanayo war taas barashaba ma baahnee taasi barasho ma baahnaba okay sida makeup loo marsood garanaysaa oo in xagga wax la mariyo garanaysaa xagga in wax la marmariyo garanaysaa xagga in wax la mariyo garanaysaa laakiin masar ma garanaysid okay waan fahanay guntiinaan xiranahay madaxii maraan ku xiray garab saar baan waxaan saartay inkastoo ay khafiif ahayd yaa waxaan saartay garbaha stage kale igu fuulay xalli madaxweynaha fadhiya qoorta qarso okay halkan yar fiirso waxay tiri weliba shalmad yar ayaan xaggan soo saartay marka wuxuu waaba shalmad khafiife haddaad wax weyn macalisduldhigtid uu khafiif yahay oo jidhkaaga laga dhaxarkayo dee taasi asturni maaha marka iminkana waxaan ku barnaa asturnaantii waxaan asturaan ahayn dee xageen kaaga bilowna meelan kaaga bilowna ma garanaba iskuulka kusoo celi bal walaal qaali iskuulka soo laba dhigo madrasa teg bal stage kale igu fuulay xalli madaxweynaha fadhiya qoorta qarso okay dadka saa kuli way saxsanaayeen laakiin in yar bay ku qaldanaayeen inay ku yidhahdaan ma ahayn madaxweynaha keliyaad ka qari inay ku yidhahdaan bahayd naga wada qari annaga ku daawanoo dhan markaa waxaa joogay madaxweynihii baa waa xaflad dhan oo dowladii fadhido kowdii luuliya inay ahayd baan u malay fiiriya okay halkan dib u soo raacay markaan fiidiyowga bilaabayna waxay tiri waan cabsanayay macnaha wadankii cabsi baan ka qabiyay haddaba walaal maxaad ka cabsani mar haddaad madaxweynihii la joogtid ilaan madaxweynaha ilaaluu leeyahay meeshuu madaxweynuhu joogo say wax uga dhacaan oo adag tahay markaa maxay ka cabsanaysaa gabadhan haddaba waxay ka cabsanaysaa an weli ma fahansani wey adoon xiran aqoonin dris baan soo bartayba iyo cambuuriyaan soo bartayba iglanay horta edab baa lagu yeelayaa ahaantood taasi been maaha in edab lagu yeelo waa qasab sababtaa taasna waa lagu yaqaanaa dee inaa adigoo kale edab lagu yeelo waaba qasab dee cabsigaa kuu geynaysaba waxaadan aqoon oo dhan baa cabsigaa ku baraysa okay xaggan u yar fiiriso waxaadan aqoonba bay tiri macnaha iyadu diinteena ma taqaanin masar la xidho ma taqaano maxay taqaanaa gabadhan markaa hadda waaye maxaad walaa taqaanaa sida loo hadlana ma taqaanid ba waxaad ka hadlaysid ma fahmina be ani arrintan weli maskaxdeeda ku dhex wareegaysa waxa weeyaan gabadha intaas leeg hadda gabadhu intii leegta waad arkaysi maa malaynayaa waxay ku leedahay sida masar loo xidho ma garanayo markaa dabeetana dee markii aad miyada la qabsan oo aadan soo waayo arkin oo hodanay oo still the eglanay anoo horta xijaab ma xiran jirin dambi ma rabo inaan sheegay okay waxay tiri xijaab ma xiran jirin macnaha inaan dembi sheego ma rabo okay saa aduu labisantahay laakiin dembi maa miyaa sheegay waxaan xirtaa cambuur dress ah khamaar yar baa xirtaa still dawo dadku waan ka dhex muuqdaa dib maxaan sameeyaa anaa kuu sheegay dee sababta ku dhex muuqatid adoo wadan muslim jooga isku dhex xidhan tahay garana waad xidhan tahay gabadhna waa tahay markaa qasba inaad ka dhex muuqataa dee waaw wallaahi horta arrintaas waa arrin hodanay taa waan isla garanay hodanay markaan usoo eegno fanka aad waxaa tahay dadka lifeka ku heesa ee muusiga lifeka ma aragtaa hadday macnaha su-aalaha lagu sii badin lahaa waxyaaba kale ka hadli lahayd ba iminka gabadha baa yara dhaanto macnaha mawduuciiba ka yara bedeshay meesha ma garanaysaa haddaba ka waran dadkan bay dad intay lacag bixiyaan ay tigid goostaan xafladooga tagaan war bilaash haddii lagu galayo war bilaash tris waa kaale haddii lagu baryo ma yimaadeen waxba kama faa'iidaybe tukalna isweydiiya fanaaniintu waa indhaha shacabka ma garanaysaa marka indhihii shacabku saan ku hadlaan maxaa hadhay yaa